madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta safarkiisii labaad ugu dhoofay waddanka Eritrea oo sida la sheegay ku sugnaan doono muddo 4 bari ahi. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wax xog ah laga hayn ujeedka socdaalkiisa cusub ee Eritrea oo aan xiriir wanaagsan kala dhaxayn xukuumadda Xasan Sheekh ee xilligan. lama oga inuu safarkiisu yahay mid lagu soo daabulayo ciidamada Soomaaliyeed ee ay tababartay dawladda Eritrea ee ku sugan waddankaasi. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa horey u booqday ciidanka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in lagu soo celin doono dalkooda maadaama uu tababarkii la siiyay u dhamaaday ayna ka qayb qaadan doonaan la dagaalanka al-shabaab ee xilligan ka socda gudaha Soomaaliya. balse ballankaasi ma hirgelin mana noqon mid hirgala oo lagu soo celiyo dalkooda Soomaaliya. ciidanka Soomaaliyeed ee gaaraya 5,000 askari ay tababartay dawladda waddanka Eritrea. heshiiskii dhawaan dhex maray madaxweyne Xasan iyo kan Masar Cabdifitaax al-Siisi ayaa hosdac weyn u geystay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Eritrea oo 5 sano ee la soo dhaafay wanaagsana. Eritrea ayaa u aragtay xukuumadda Xasan Sheekh ee xilligan mid aan lahayn sal siyaasadeed iyo meel loogu hagaago. madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerki oo ay saaxiib dhow iyo mid xulufaysi siyaasadeed difaac ay leeyihiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya Mastar Abiy Ahmed ayaa saanqaadka iyo habdhaqanka siyaasadeed ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u arkaa mid aan wanaag u ahayn danta Soomaaliya iyo midda gobolka Geeska Afrika. labadan hogaamiye ayaa xiriir wanaagsan la lahaa xukuumaddii hore ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. lamana yaqaano waxa iska bedeli doona. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aaminsan safarada badan ee madaxweyne Xasan aysan wax dan ah ugu jirin dalka iyo dadka Soomaaliyeed kaliya laga dhaxli doono colaad iyo hurgumo wadamo shisheeye ka dhaxaysa in loo soo waarido dalka Soomaaliya. xilli dagaal adag ka socda gudaha dalka kaasi oo ay shacabku isaga xoreynayaan argagixisada al-shabaab oo dhibaato ku haysa dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed.